maamul goboleedyada dalkan federaal aan ku soo hogaaminay Soomaaliya haddaan rabto federaal inay ka tagto waa inay isu timaado go'aan ku gaarto nidaamka siyaasadeed ee rabto inay raacdo aniga waa ogtay waxaan ka imid maxkamadaha islaamiga ra'yigoodu wuxuu ahaa federaal dalka ugu fiican anaana ku hogaaminayo laakiin markii dawladda Cabdullaahi Yuusuf raxmatullaahi calayhi wada hadalka la galnay waxaan ku heshiinay dhibaatada loo yareeyo federaalka inaan waafaqnay hal maalinna kama leexanin madaxweyne xasan sheekh waa ku mahadsan inuu suurad geliyay hirgelintii federaalka haddii dawladda dhexe iyo dawladaha federaalka ay wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa habka lagu gaarayo doorasho haddii xisbiyada iyo dawladda aysan wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa sida lagu gaarayo doorasho maya okay intaas wax ka duwan hadday jiraan ayana waxaan jecelnahay in naloo sheego leeyahay maya doorasho suurtagal maaha sababkaan iyo sababkaana jira raalli ahaada inaan fahamnaan rabnaa ku talagalno waxaan rabnaa marka inaan xoojino wadahadalkii ka bilowda Garowe oo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe isugu yimaadeen madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ku ballan qaaday inuu sii wadi doono waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadalada dib loo soo laabtaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano isu soo dhawayntooda iyo hor socodkooda maanta waxaan samayn karnaa taariikh waxaan samayn karnaa ummad nafal laqata ummad tusaale loo soo qaato oo burbur iyo meesha ugu fiican gaari karta laakiin taas waxay u baahan tahay inaan ku dhiirano xalka inaan is aqbalno inaan ka wada shaqayno danta qaranka dalkan qof kasta Soomaaliya waxaa ku filan inuu nabad yahay cadaaladna uu helayo soo sidaas ma taas waa wax la gaari karo cadaalad darro waa ku soo guuranay ma rabno inaan dib ugu laabano dawladda waxaan karankeeda maalina ku meeleen laakiin waxaan rabnaa waxaan karankeeda inay la hadasho maamul goboleedyada ma karankeeda mise karankeeda ma karankeeda waxay u baahan tahay lama warama wadana kaalaya marka meeshuna waa kulushahay waxaan u malaynaa marxaladuna waxay dalbanayaan wax badan in la sheego saylata maamaayada aad u maqaano laakiin hal arrin ay ugu soo dhacayso aanan jecleen inay dhacdo nin reer baadiya waxaa ka dhumay rati yaa mise waa neriga ma aqaano marka meelay ka laacatay waa dabagalay wuxuu tagay neefkii oo libaax dishay oo dhintay waa soo laabtay wuxuu inta markay ka leexaysay yacabtuu qarankan ani waxaan aaminsanahay maanta yaca u baahay shala annagoo joogno korkaana ku duway waqtigaa lagu baxshay dad badan oo qaali aan ku weyne masoo beentay abaalmarintooda waxa waaye qarannimada inaan ilaalino see ku ilaalinaa waxaan ku ilaalinaynaa billatii hiya axsan aayadihii aan rabayna idiin sheego waxaa ka mid ah walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac billatii hiya axsan ani waxaan rabaa taas inaan mabda ka dhigano laakiin xaqa inaan sheegto waa ku khasbanta calaaqaadka arrimaha dibadda xaaladiisa waa aragteen maamul goboleedyadii xaaladooda waa aragteen wadahadaladii mataqaanaa walaalaheena reer Somaliland meesha gaaraan waa aragteen dariskii waa aragteen xaaladeeda inaan iska fiirsano ilaa wax kasta iska dhimaan suuragal ma dawladda waxaan la garab taaganahay inaan
deegaankeenna iganaale aada arrin dhacday aan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo oo anigii madaxweyne xasanna dhex martay waagii aan joognay garowe xoogaa madaxweynaha waxaa lagu xamo jiray inuu rabo inuu dowladda rido marka gaara ula baxa waxaa idhi waryaadhe adiga waxaan leeyahay dowladda ridaysaa bal maxaa jira ii sheeg xodha xaashaa lillah waxba kama jiraan haye cabbaaraan sheekaysanay gacantaa ka qabtay madaxweyne farmaajo awgeey waa kana waxaa idhi madaxweyne ninkan wixii lagu xamanayo been waaye labadaada sano inaad dhamaysato ogol yahay laakiin wuxuu rabaa konsenkiisa inaad dhegaysato wuxuu dhaa waa aqbalay waa ballameen laysma arkan ilaa hadda ما meeshaas ma dhaafo karo madaxweyne ninku waa saaxiibkay maadaama aad daasheen sheeko kale aan kaga sheekayna raalliga ahaadaana madaxda marka qofka Soomaaliga la doorto jinniga ku dhaca jinni runa waa ogaada jinnigaas waxaa la yidhaha anaa lay doortay maxay rabaan dadka ifadhiista aamusa laakiin muddo haddaad joogto waxaa arkaysaa in qofka ugu daciifsanaata maxaa yeele culays kasta ugu kusaaraya marka waxaan rabnaa dowladda waqti fiicanaa soo maray wixii ay la ahayd waa soo sameeyeen laguma qanacsana soo saas maaha waxaan rabnaa dadka in talada loo furo ay biiriyaan iyaguna ilaan qarankaana waa qarankeena taas xaggaasaa uga gudbaaya waxaa umaleynaya dowladda intaas waa ku filanta meel kalaa rabaa inaa aado dad badan oo mucaarada oo gurbaan aan fiicnayn garaaxa ayaa jira gurbaanka qabyaaladda waa qarandunis miinis qabyaalad waxaan rabaa qabyaalad dambe inaana u laabanin halkaas ay ku joogsato qofku waa la dhaliili karaa wax mushkilaa ma leh laakiin ay qabiil loo fasiri karo waa inaan ka fogaano noo dhanaa isu baahan ahlaan nahay meeshaana ilaahay la dejiyey ummado aan shaqo isku lahayn inaa wada noolaan weyno annagoo intaan isku ah doqonnina inagu tahay marka waxaan rabaa arrintaasna in xoog looga digtoonaado waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo aan ka khatar yarayn social media waa wasiilo fiican oo fikirka lagu gudbi karo laakiin si khaldan haddii loo isticmaalo waa khatar ayadan dowladaha aan dhismin oo aan fadhiisanin oo hay-adahooda sharciga aysan fadhin dadku xuduud male waxay rabaan iska sheegayaan waxay rabaan inay soo gelinayaan ayagana waxaa rabaa dhalinyarada inay aad uga feejignaadaan waxyaabaha ay fidinayaan inaan ahaano positive mar walbo dhismaha dalkeenna ummadeenna isu soo dhaweynteeda aan ka shaqayno waxaan rabaa inaan u gudbo dhowr qodob oo xisbiga oo maskaxda ku haayo oo ay ugu horeyso dalka wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin dhaba oo laysku cafiyo gacmaha laysku qabsada inay ka dhalato waxaan rabaa biilkaas dowladda ugu horeysa ujeedinaa maamul goboleedyada axsaabta odayaasha dhaqanka haweenka culamaa diinka arrintaas in laga shaqeeyo soomaaliya meeshay ka daawoodi weysay waa meeshaas waagii xornimada la qaatay aniga waxaan aaminsanahay haddii inta gobol loo dhigo soomaalida 2 sano socota hadday rabto wadahadal la samayn lahay oo laysu sheegi lahay waxa laga guuraayo iyo waxa laga guuraayo qarankaanu maanta saan ma ahaadeen ilaa hadda waa u baahannahay dib u heshiisiinadeen hore waa fiicnaayeen laakiin waxay ahaayeen emergency waxaan rabnaa midaan emergency ahayn kuraas lagu qaybsanaynin laysku cafinaayo laysku calool xeeranaayo oo odayaasha jawaari oo kale ay noo hogaaminayaan in la sameeyaan u baahan waxaan u baahannahay sidaas oo kale dowladnimada aan rabno inaan ka wada hadalno mid wuxuu rabaa federaal mid wuxuu rabaa wax kale
calooshaana lagu hayaa in bannaanka la soo dhigo madaxda aan ka mid ahay marka la doorto dee haddii la doorto waxay yidhaahdaan khalaas sheekadu waa dhammaatay warkayga maqla in mas-uuliyaadka la qoro maxaad xuquuq leedahay maxaa waajibaad leedahay madaxweynaha ka bilaab ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa maxkamadiisane yani waxaan la soconaa aan ka aamusa taas maanta waxaan waajahaynaa cadow gudaheena ku jiro annaga noo agoon diin la qalluuciyo in lagu dilaayo daannagii kala baabsannahay midba maalinoo guriga suuga imaanaya waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya inaan aado waxaa lee sheegay in dalka abaara ka jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala horta waxaan weydiisanaynaa roob naxariis leh inuuna siiyo waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meelay joogaan inay gurmud bilaabaan markii dad dhinto kadib intii aan ordi lahayn aan hore u diyaar garowno maxaan ku idhaha ururada bulshada oo arrimahaas ku firfircoonayna doorkooda ha qaataano dowladda iyo siyaasiyiinta iyo maxaan ku idhaha maamul goboleedyaduna gacana ka geystaano si gaara waxaan rabaa inaan codsi ugu jeediyo dadka jooga dibadda ama mararka qaar la yidhaha diyaasbaraha inay mataqaana ka qayb qaataan hawshaas inaan u gurmano dadka walaalaheenna wixii aanan ku filnayna inaan ka fikirno sidii loo heli lahay aad iyo aad aa u mahadsantihiin sharafay ii taha maanta inaynan ka soo qayb galo xafladan aad iyo aad aa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi